xarumaha caafimaadka waxaas goormay dawladda hoose la wareegaysaa cashuurtii haddii aan bixinay miisaaniyadda maamulka mid sir ah miya oo dahsoon miya canshuurta anaga aan qaadno wax cad waayaan ku dhahay sanad kastoo waxaan diyaar u nahay waliba sanad ma ahado 6 bilood ka bacdi inaan soo bandhigno IDB kamid ah IDB magaalada Jowhar ku yaalo maana aad tagnay iska daa waxbarasho iyo in maadi ay bartaan xitaa ilmihi quraanka lama barin dabdamis aan rabnaa waxa idin ka codsanaynaa hadaan haweenkii reer Jowhar inaad dabdamis labaad keentaan muddaxileedkiina goormuu ku egyahay haddana goormuu isku soo sharxi karaa qofka dhalinyarka ah in uu noqdo xildhibaan gole deegaan deegaanka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Jowhar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Farxiin Maxamuud waxaan hogaaminayaa mashruuca muddo ka socday waxaan ka socdaa hay'adda Somali Public Agenda waxaan ka shaqeynaa dhammaan gobolada dalka waxaan xoog saarnaa maamul wanaag iyo sidoo kale adeeg bixinta مشروعا waxaa maalgelinaysa EU-da ama midowga Yurub wuxuu ka shaqeynayaa 3 degmo degmada Jowhar degmada Cadaado iyo sidoo kale degmada Boosaaso ujeedkiisana waxay ahayd in la isku xiro dadweynaha iyo sidoo kale golaha deegaanka mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa kaliya degmooyinka leh golaha deegaanka oo functionalka oo shaqeynayo maadaama dawladnimada meesha ugu hooseyso ee dadku ugu dhow ay tahay dawladda hoose ama golaha deegaanka waxaan ugu talagalnay inaan halkaas ka soo dhisno dawlad dhiska macnaha in loo soo dhiso meesha ugu hooseyso oo mashruuca wuxuu ahaa ujeedadiisa isla xisaabtanka marka wuxuu ku imaanayaa in canshuur dadweynaha ay bixiyaan dawladda hoosena adeeg ay bixiso saddexdan sano waxaa wadnay inaan tababaro u sameeyno 12 qof oo ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale golaha deegaanka maadaama degmada dadka degan dhan aysan matali karin 12 qof kulankan oo kale waxaa loogu talagalay in la ballaariyo madashaas ee kala warqaadaan golihii iyo sidoo kale dadweynihii waxyaabo badan isticmaalnaa waxaa ka mid ah codad in bulshada u daayno fariin qoraal in bulshada laga soo qaado marka ujeedadu waxay tahay aan soo gunaanadayo in iska war hayaan bulshada iyo dadkii maanta halkan waxa isugu imaanay marka in su'aalo iyo jawaabo kala war qaadataan bulshada ay soo bandhigto wax qabadkeedii dhowr mar waxaan ka qabanay Cadaado iyo sidoo kale Boosaaso farxadeena maanta inaan ka qabanay degmada Jowhar waxaan rajaynaynaa dadaalada noocan inaan sii wadi doono oo aan ku dadaalno marka dulucda dooda waxay noqon doontaa in shacabka ay weydiiyaan su'aalo macnaha waxtar u leh bulshada shacabkan degmadan ay u jawaabaan halkan ma noqon doonto meel lagu doodo ama dagaal ama foodo laga sameeyo kaliya inaan kala war qaadano waxaan rabaa inaan ku wareejiyo Cabdiraxmaan oo dooda noo daadihin doono Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay 12 qof ee aan 3 sano soo tababareynay ka mid ah ururada bulshada rayidka waxaan rabnaa hadduu mashruuca dhamaado in isku filnaadaan bulshada reer Jowhar ee adeegyada iyo canshuur bixinta iyo howlahooda ay kala shaqeyn karaan deegaankooda aad u maasantihiin soo dhawaada waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Jowhar ahna duqa magaalada mudane Ismaan Maxamed Mukhtaar Ismaan Barre sidoo kale waxaan salaamayaa xoghayaha degmada Maxamed Abubakar Cali sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Axmed Cali dhammaan golaha deegaanka ee halkan fadhiyo bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan بعد صحافة qof waliba waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maqaamka halkan uu ku fadhiyo salaan kadib sida ay hore nooga sheegtay walaasheen barnaamijkan mashruucan SBA wuxuu muddo badan ka soo shaqeynayay isku xirka bulshada iyo dawladda
maanta waxaan u fadhinaa waxay tahay inaan su'aalo ka weydiino golaha deegaanka waxqabadkoodii ayagana inay noo soo bandhigaan waana qayb ka mid ah isla xisaabtanka dadweynaha iyo dowladda ay matalaan saa ogsoon tihiin madaxda halkan joogto waxay ka timid bulshada waxayna u adeegaysaa bulshada marka waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo si uu nooga soo bandhigo waxqabadka iyo waxyaabihii u qabsoomay maamulka degmada Jowhar mudane Maxamed Abuukar Cali oo aan ka filayno inuu noo soo bandhigo waxqabadka degmada adinkana aad ka weydiin doontaan waxqabad bandhigaas kadib wixii su'aalo aad qabtaan soo dhawow xoghaye mudane Maxamed Abuukar Cali بسم الله شهادة Somali Public Agent waxaan shaqeynayna muddo ku dhow 3 sano waxaan kala shaqeynaynay marna waxa ahaa horta ani waxaan nasiib u yeeshay inaan bulshada rayidka qayb ka soo noqdo dadkii loo tababarayna ka mid noqdo hadda oo anagoo ah mas'uuliyiinta dawladda hoose ka mid ah in maanta su'aalihii aan weydiin jirnay golaha deegaanka in maanta anaga nala weydiiyo anagoo dhihi jiray golaha deegaanka maxay qabtaan maxay yeeleen aan dhihi jirnay hadda maanta anigoo ah xogeeyay dawladda hoose degmada Jowhar in su'aalo laga weydiino ada ugu faraxsanahay Somali Public Agent in muddo ah way nagala shaqeysay hadda waxaan rabnaa waxqabadkii degmada in muddo ah markii lagu soo wareejiyay canshuuraha dawladda hoose markii lagu soo wareejiyay waxay noqotay dawladda hoose dawlad isku filan oo ka caagan in deeqa iyo wax loo soo waxeeyo dan canshuurihii bulshada aan ka qaadnay in dib ugu laabno waxaan ka mid ahayd maalin waxaan sameynay wadadii interlog ee aan u dhisaynay bulshada waxaan ka qaadnay cashuurtii maamadii 2000 oo yaanyada gadiisa 2000 aan ka qaadnay maamadii ninkii dugaanliha ah cashuurtii aan ka qaadnay in dib ugu celino anagoo kaashanayno hay'adda IOM oo barnaamijka isku darsi inaan isku darnay dan waxa kale oo sameynay dib ugu celinay buundadii qaybinaysa magaalada waxaan sii guda galaynaa barnaamijkeennii ahaa waad arkaysaan waxa waaye il wax haysta waxaa la yidhi ilaala ka dhan gudoomiyaha wuxuu u qabtay indhihiina ku aragteen waxaana filaynaa inaad la noqotaan oo adinkana u sheegi doontaan dadka idinka dambeeya waxqabadka gudoomiyaha iyo garbihiisaba waxa waaye waan aad baan ugu mahadcelinaynaa mudane gudoomiyo waxaan u malaynayaa saaxiibnimo iyo ka warqab iyo sheeko iyo aniga wax ka dhow malayn waa sheekaysan jirnay meel aan wada joognaa laakiin waxaan ma ogeyn mar arki jirin qaar ka mid ah waana kaaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol gudoomiye iyo dhammaan golaha deegaanka su'aalihii aan qabnay inta badan waxaan filahay inaan laqnaba marka soo dhawaada bulshadii waxaan idinka rabaa inaad su'aalo asluubaysan kooban jawaabta la bixiyo aad dhagaysataan su'aalaha inagu soo laba laabanin oo su'aal mar la weydiiyay marka aan lagu soo celinin marka soo dhawaada qofka su'aal qaba farta uu taagana uuna noo istaagaa san su'aasha aan wada maqalno jawaabtana waxaan ka rajaynaynaa gudoomiyaha iyo tiimka golaha deegaanka hadda qofkii markaas ay u wakiishaa inuu ka jawaabo su'aashaas ayuu ka jawaabi doonaa soo dhawaada magacaygu waa Yaasiin Cusmaan Gacal ahna kana mid ah dhalinyarada degan degmada Jowhar su'aashaas waxaan ku socodsiiyaa gudoomiyaha ahna duqa magaalada mudane Cusmaan Bari waa su'aal iska kooban gudoomiye waxaad noo sheegtaa qaabka loo aruuriyo dakhliga ka soo xirooda magaalada Jowhar aad iyo aad u mahadsantahay magacaygu waa Cabdillah Axmed Cabdi ka tirsan ururada magaalada ka tirsan oo bulshada waxaan weydiinayaa dawladda hoose canshuurta naga qaad waa aragnay qaabkii noogu celiyeen waxbarasho waa helnay garoomanka iyo wixii kale oo ku soo xigaan marka gobolkan waxa ka dhisan xaruntii dhalinyarada gudoomiyaha marka waxa ka rabnaa xarumaha caafimaadka waxaas goormay dawladda hoose la wareegaysaa canshuurtii haddii aan bixinay waa aragnaa qayb ka mid ah nagu soo celiseen marka goormay helayna xarun caafimaad oo dawladda hoose ee maamusho marka koowaad waxaan salaamayaa salaanta islaamka inta meesha fadhisa waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan labaad waxaan u celinayaa gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo mataqaanaa golihiisa deegaanka oo waxyaalaha hadda noo muuqanayana soo hordhigay waad ku mahadsantihiin laakiin weli hawl badanaa idin dhiman allah idinla garab galo innaguna garabkiinaan taagannahay su'aashaydu waxay ku saabsan tahay sida aan ogsoonnahay magaaladu
inteena anigu waxa waaye waa la iga sii xogogaalsan yahay anigoo dadkii ku dhashay idinka ah laakiin anigu waxa dhaliisha aan arkay ayaan inaan soo gudbiyaa waajib ugu ah waxay tahay dhaliishaasi xilliyada roobku doo waxaa jirta meelo badan oo jidadkii in lagu xiray carro oo qof walba meesha uu dego hortiisa carro uu ku xirto waxay keeneen carradaas qof walba gurigiisa hortiisa uu ku xiray biyo fariisigaasi wuxuu noqday qashin qabad waxaa ka imaanaya cudurro waxaa ka imaanaya suurad xumadii magaalada runtii magaalada waa laga shaqeeyaa laakiin waxyaalaha suurad xumaynaya biyaha saakowka ah biyahana bulshada ayaa sabab u ah maxaa uga qorshaysan golaha deegaanka oo guddoomiyaha uga horeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada jowhar dhinaca arrimaha bulshada xogeeyaha guddoomiye guddi hoosaatyada xildhibaanada golaha deegaanka halee cudur daaro maanta inaan shaqo ku dhex jiray marka hore yaasiin iyo ninka la dhahayay maya iyo cabdijaliil isku su'aal waaye haddii si loo fiiriyo walow oo magaciisa saaxiibkiya wuxuu yidhi il waxay hayso ilaalma ka dhan markaan soo owlaha aan isku soo dubrideyni oo uu talageliyay dadweynaha inaan dhegeysiino ama arkaan waxay ahayd in oo ilaalmo ay ka dhammaato su'aalo ay ka dhammaadaan laakiin haddana wixiina la su'aalo waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno waxaana loo doortay ay ka mid tahay waana ka jawaabaynaa hadduu al yidhaahdo run ahaantii yaasiin iyo cabdijaliil waxay na weydiiyeen lacagta qaabka oo maxaan ku raayto oo loo qaado waxay ku qoran tahay tariifad yaasiinow tariifaday ku qoran tahay wax oo waadix waaye oo haddaad gashidna googlahana aad heli kartid haddaad gashidna bogoga maxaa la dhahay dowladda hoose aad gashidna aad ka heli kartid dadka naftarkiisa wada ogo in waxa la qaado galeeda waxa la qaado bariiska waxa la qaado dukaanka waxa la qaado wax la og yahay waaye tan kale wixii la qaadi waxaan diyaar u nahay laftirkeedu inaan soo bandhigno bishaan waxaan helnay intaan waxaan sameynay intaan inaan dhahno haddana intaan badanaaba ku soo bandhigniyo iyadoo kooban aan sameynay meeshaan aad ku jirtid hadda dowladda hoose aad dhistay lacagtaada lagu dhisi qayba kale sidoo kale iskuul ku yaalo maxaa la dhahay isnay biaso laba iskuul ku taalo anagaa dhisnay dowladda hoosaa dhistay shacabka lacagtooda lagu dhisay labada aarga aad arkaysiin saddexda aargo labana waxaa ah maxaa la dhahay taalo ka horteed intay hormuud noo dhisin annagaa dhisnay hormuudna waxaan ka sii codsanay inaan dhisno oo inoo dhisaan saas daraaddeeda waxaad dhisi dowladda hoosaa dhistay aargada aad arkaysiin oo tan kaligeena dhisnay cid ma kala kaashanin boondadii jabaysii oo magaciisii geelka uu ku dhacayna annagaa sameynay waa aragteen qaabka ay tahay waxaa ku saartay isbartiibada hadda qabyada qabya annagaa inaga tahay haddana lacagtiina lagu dhisooyaa waddada aad arkaysiin magaciisii ku taalo xaafadaha dhexdooda sida horseed iyo maxaa la dhahay antiwadaag oona dhammaystiri doogna weliba magaciisii wejiga labaad waxaan dhammaystiri doonaa waddo kasto ee dhex marto magaalada jowhar waxaad ogtihiin waqtiyo badan rajiim kasto ayaa waxay soo mari degmadan jowhar ama soomaaliya soo mari haddana ma jiri jirin wadda gudaha u gasho maxaa la dhahay laami ma jiri jirin halkan waddo meeshaan ku hormarayso ayaa jiri jirtay haddana gudaha lagu sameeyey waxaan lagu heli dowladda hoose darteed sidoo kale interlog ayaan sameynay sidaad arkayseen oo aan dhagax dhigayni interlogaasna waa socoyaa hadduu al yidhaahdane
وسميت دونا وانا دمستر دونا هدو اليراو MCH كويا حافظ كل مس واد دسني MCH ما إن هي أدلى أي دستي كالمان كجيسني دول دوسات دستي لعجينا لو دستي إن إلاج تينا نرجع يعني عافماتك iyo maxaa dhahay iyo waxbarashada iyo maxaa dhahay maaliyada waa la wareegnay saani sheekni meesha ku soo bandhignay waxbarashadana waa la wareegnay lafirkeeda ma wax noogu dhiman waa yar tahay caafimaadka noo dhiman waxa noo dhiman biyaha noo dhiman howlaha guud noo dhiman waxaan markaasna kala xaajoonaynay wada hadal noo socday wasaaradaha ay qusayso si iyagana sida maaliyada noogu soo wareejisay ay noogu soo wareejiyaan oo adeegii bulshada aan u bixino haduu al yiraahdo waana bixinaynaa waxbarashada bixinaynaa dugsiyada dhisi doonaa masaajidaha dhisi doonaa xitaa waa qaybta aan naga aadan dawladda hoose waxa waaye adinka iyo anaga iskaashanayno ayaan adeegi doonaa haduu al yiraahdo abwaan su'aal fiican waaye waxa su'aashi horta waxaan ka xumahay in shacabka dhaxdiisa ay ka soo yeerto in caro ee ka dhigan in aniga ugu eedeeyaan ama aan la weydiiyo haddana waxaan ka qabanaynayo cid kasta oo sidaas samayso ama samaysi waxaan bixi doonaa deegaameen aan sameey doonaa in wadada hadda sida ugu shaqeyn doonaa cid kasta wada u xiran tahay haddaba meesha fadhiisin waxaan rabaa in dadkan aad geersiisin idinkana aad iska dhaadhicisin in lagu imaad doono hal taako oo dheeraad haday kugu jirto anaga waa ka shaqeysanaa haduu al yiraahdo waxaan rabaa in lagu qanco waxa adil lahayn hadii qaadatid in laga noqsahayo ogow waxa leedahay cabir documents aan leedahay documentskaadaan fiirneynaa ka gadaalna waxaan sameyneynaa in aan ka bixino wixii xaraan kugu ahay aad u maasantiin السلام عليكم قف كاستمر سبكو كفديا meeshiis ku salaamaya magacaygu waa Nasteeha Cabdullaahi Xuseen ku dhalatay magaalada Jowhar kuna barbaartay ardayna ah in markasta waxa aragnaa gudoomiye ayadoo nadaafadeyn la sameeyo nadaafada waxa laga qaadaa xaafadda Hantwadaag waxa la geeyaa xaafadda Horseed maxaan iiga qabsoomi kara yaani maxaan iiga la muuqda in laga dhaafo meeshaas oo qashinka la geynayo aad magaalada Horseed markii loo socdo dhibaatooyin badan lagu qabaa qaasatan haddana la taagan yahay ursaa'ida ka jiro lama mari karo maxaan iiga qabsoon maxaa rajaynaysin in meeshaas laga bedelo ma rajaynaysin ma sidaas inaan ugu haysiina rajaynaysin wassalaamu calaykum dhiga iyo ama hiddoonta ama aad maqlayso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aniga magacaygu waa Xasan Axmed Cali Sow ku dhashay caasimadda Hirshabelle ee degmada Jowhar waxaan rabaa howlka maanta waxa igu sugan 99% markii hal laga reebo waa dhalinyaraduna waxay u taagan tahay sanadkan dawladda maadaama ay u horbadanayso doorasho qof iyo coda dawladana 95% ay tahay dhalinyar waxa ku jirta howlka ama igu sugan u taagan xilka golaha deegaanka ee degmada Jowhar ama aan kamid ahaado ama aan kamid ahaanine waxaan rabaa gudoomiye golaha deegaanka aad u tahay horjoogaha ama gudoomiyaha waxaan rabaa muddaxileedkiina goormuu ku egyahay haddana goormuu isku soo sharxi karaa qofka dhalinyarka ah in uu noqdo xildhibaan golaha deegaan amaasanta gudoomiyaha degmada aan duq magaalada Cismaan Bari aad u maasan yahay jaaniska aan u siiyay maanta maadaama gudoomiyaha hortaagana xogo qalqalna waa iska jiraa marka su'aalaheena aad u kooban yihiin wixii la qabtay wanaagsan waa daawan aad u maasan yahay gudoomiyaha waxaan weydiinaa caqabadaha jirta xilliyada roobaadka oo xaafada dawladda hoose iyo gudoomiyaasha xaafadda maxaa u qorshaysan xilli roobaadka markii la gaaray badanaa waxaan daawanaa biyo la isku horgooyay oo dadka masaakiinta xoog loo sheegtay oo biyo carar la buurin aragnaa gudoomiyaha iyo xaafadda maxaa u qorshaysan arrinkaas idinka baad celinaa marka hore xaafadda Horseed gabarta ka hadashay aad u maasan tahay horta ma aha in xaafadda Horseed god laga qodi ama qashin lagu shubayo laakiin waxay xigtahay xaafadda Horseed dirisay la tahay hase yeeshee waxaa noogu qorshaysan waxaan diyaarinay god oo loogu talagalay in lagu gubo 6 bilood marba lagu gubo laakiin nasiib daro baashii qodiisii maxaa la dhahay saamabaaladii
ayaa ku dhiiqatay biyaha ka soo baxay insha allah haddii ay meeshaas ay qalasho waa tegaynaa waana sameehaynaa insha allah waan ku tala jirnaa waxaa kuu soo hertay golaha deegaanka yeerkii rabi aawe xasano horta hal dhacdo oo dhacdayaan kuu sheegaa igaara wuxuu qaadanayay mushahar uu qaadanayay $3,000 $3,500 ay haa wuxuu yidhi waxaan rabaa golo deegaanaan rabaa tiri waxaa la yidhi shaqada ka tag saxiix waa ka soo tegay golihii deegaanka uu yimid guddoomiye degmo inuu noqdo rabaa golaha deegaankana caqabada oo ka jirto dadka inay fahmaan horta aan rabaa beriga inay fahmaan golaha deegaanka xubinta oo ka noqonayso waxa waaye nin ganacsato ah nin beeraley ah ee beertiisa iska aaday ee dhulkaas soo arkay in oo dhabaha waxa joogo magaciis baaral dhigto in maxal dhahay in badarka uu biyo ay gooyaan in abaaraha ay badihiin arkaayo aan loogu talagalay asoo beeriis falahayo inuu ka soo qayb galo fadhiyo haddii jiraan waaye saddexdii biloodna waxaa laga shaqeeyay 20 maalmood ka bacdina waa la xiray golaha deegaanka dabeecadiisa waxa waaye ninka ka soo baxo dukaankiisa uu yimaado kal fadhigaas uu sheego waxa dhibaato ka jirto suuqyadaas iyo meelaha uu maraayo wadadaas waxa qashinayaali sida abwaanka uu sheegayo kale iyo gabadha aad sheegayso kale in sidaas oo magaciisii as u dhaho loogu talagalay golaha deegaanka aad arkaysiin ma aha kuwa mushaar qaato toos u qaato ma aha igaarkii oo ku sheegay wuxuu waayay xubintii wuxuu galay golaha deegaanka lacag os hel iska dhaafay kala fadhi hataa ma imaahayna gudoomiye degmada waa waayay haddii aan kaaga jawaabo in maxaa la dhahay ka soo qaybgalkaada iyo sanadka anaga anoo dhiman anaga horta 2 sano anoo dhiman waxaana la galooyay hadda qof iyo codaa la galooyay waxaan diyaar u nahay hadda inaan tartagno haddaa rabtii soo tartag muwaadinaad tahay u soo tartag diyaaraan ku nahay anaga waxaan diidi karna ma laha marka jooraan naga wada dhaxeeyo dadka iyo deegaanka naga wada dhaxeeyo waxaan diyaar u nahay in la tartamo ana nafsikeyga inaan tartamaan diyaar u ahay xoog ma ku imaanin anaga dhamaan xoog ma ku imaanin rabitaan aan ku nimid rabitaankii aan ku joognaa insha Allah waan magaciisi soo dhaweynayna cid kasta oo u baahato aan ka gaari karnay sida oo ugu fiican Roma hal maalin mal dhis Roma waxay ku taalay Talyaaniga waaye hal maalin ma dhismin annagana sida maanta nahay biri ma ahaadowni aad u maasantii magacaygu waa Mustafa Maxamed Guuleed waxa ka tirsanahay dhalinyarada magaaladan waxa qabaa 2 su'aal gudoomiye waxa rab markii hore in anaga raali ahaato hadii xogaa dhalinyarada codka gafaysa aragtay meel libaax joogaan lo ma gudlatay adaa libaaxoona hor fadhiyo horta waxa rabnaa in anagu qaadato su'aasha aan qabo waxay tahay gudoomiye aan ku weydiinayo adiga magaaladan waxa ka jira ciyaal weero inkastoo hadda ma sha Allah ilaahay hadda uu nooga gargaaray degmada baleen ama uu qorsheysan yahay in meel dhalinyaradaas lagu dhaqan celiyo wax lagu baro qofkii ay ku cadaato in ciyaal weero uu yahay gurigaas in la sameeyo qorshaha degmada ugu jirta su'aasha labaad waxa rabaa inaan weydiiyo gudoomiyahayga ururka haweenka Marwe Fartuun Aadan Xiifow waxa ognahay in haweenka ay ka mid yihiin laf dhabarta bulshadan ayna ka qayb qaateen bilicda magaalada amnigeeda waxaan rabaa gudoomiye inaan ku weydiiyo haweenka qorshe noocay ayaa uga yaalo degmadan yaani inay ka sii shaqeeyaan ama wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha idin qorsheysan in degmada aad ka qabataan wana mahadsantiin أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف والبابا ماشى فديو منصب والبي مستوى والبو قف فديو سلام يا مجيء وحالي هذا فرحي يوسف عمر أنا وحان ربا إن نحل معنا ذا قلها ديجان كو وجهر قدوميها أنا دوق مجال إنا ويديو مجال سأكتها بوهل دب مسا جوجو وحأكتها إن معركة جنعسية وبضن هوينك معركة كلها مجال الجوهر maalin ilaahay keenana maxaa la yiraahdaa uu gubto ogtihiin hal dabdamisna mararka qaar ma aragto oo iska halaabi karo maxaa idinka qorsheysan macnaa dabdamis aan rabnaa waxa idinka codsanaynaa hadaan haweenkii reer Jowhar inaad dabdamis labaad keentaan dhowr su'aal ah oo kooban ma badna su'aasha koowaad waxa waaye
dowladda hoose maamulku wuxuu sameeyay waddo dhisay waa uu ku mahadsan yahay laakiin waddadaas xoogoo caqabada ka dhalatay waddadan marta jidka afraad kulanka hilibka waxaa jirta dad badan oo ka barakacay guryahooda dad badan oo waxaa jira guryahooda ka barakacay xilliga roobaadka wili roobkana bilow waaye roobab kala jiro marka soomaha booneen in la sameeyo wadooyin aan yiraahdo tunnel ama tubooyin in la marsiyo si dadkaasi guryahooda ay u sii deganaadaan su'aasha kale waxay tahay okay mal maqlamaya su'aasha kale waxay tahay miisaaniyadda maamulka mid sir ah miya oo dahsoon miya haddii aysan dahsooneenna sanadkii yani dabcan dakhliga aan yiraahdo oo bulshada lagu soo celiyo percentage ama boqolkiiba imise waaye mid kale waxay tahay waxaa jiro jowhar waxaa ku nool dad barakacyaal ah dad danyar ah dad masaakiin ah ku nool dadkaasi maxaa ugu qorshaysan maamulka miisaaniyadda wax loogu talagalay ma jiraan alla aad attention isiya dhammaan su'aal jeediyaalka waa mahadsan yihiin haddii aan ka bilaabo mustaf ciyaal weerada horta sharciga ka soo baxay go'aanaha ka soo baxay oo weliba la ansixiyey golihii deegaanka ay u fariisteen ciyaal weeradana idinka yimaadeen bulshada ka yimaadeen qaarkiina dhale qaarkiina ay la dhashteen haddana sidaas ay tahay ka maamul ahaan mas'uuliyadda naga saaran waxa waaye mid aan howlaheeda aan gudaha u galnay mas'uuliyadda naga saaran waxaan ku talagalsannahay inaan baabi'ino ciyaal weero hadduu al yiraahdo anagoo qof ku dilin anagoo qof wax kale ku yeeleenin in aan soo qabano sharcigii loo maray magaciisa golaha deegaanka uu ansixiyey ayaa la marsiinaa taas waxa waaye biyo kama dhibcaan waaye waa maasan tahay dabdamiska waxaan roonayd su-aashaad markaa ay weydiinaysid inaad ogaatid horta waxa anaga aan leenahay oo noo yaalo haddaan laakiin aan ku ogeysiinaa oo dhammaantiina nii sheegaa laba dabdamis aan oo taalo wayna shaqeeyaan laba dabdamis aan oo taalo wayna shaqeeyaan beenaa sheegta haddii dheysid iyo haddaa caynaysidbo waa ku tusaa mana kaaga xanaaqaay waddada saaxiibkay magacaada maxaa saayirta nuurow horta iniskeed ina soo ogaatay ku fiican tahay meesha biyaha ay ku xirmeen waxaan kuu sheegaa sarwaalkaas hadda lagu toli waxaan umalaynaa usoo jarjaran usoo markii kow oo waxa ahay daaqad ahay ayaa la jarjari inta yaardi uu yahay farsamayaqaana qabsadii oo harqaan la yiraahdo waa jarjari jeebo u sameeyey sabulximaar u sameeyey sabtabuunta u sameeyey waxa soo dhan markaas jarjaraay adiga hadii arki lahayd waa yaabi lahayd waxaad ilayd says rabaa ninkan markaan wasi iga jeejay farsamo markay socoto lagama hor dhaco nin kasto abaxo had intiina saa u socotiin baxa wadadaas soo fiiriya waa daawan kartaa sagaal waxaa lagu sameeyey biyo mareen mana rabno in biyo dadka ay ku cesho ma rabno waxaa kaloo kuu sheegaa mashalyaa waxaad dhihi jirteen webi ay noo sameeyeen waa ku dawaalnaynaa waxay noo sameeyeen waa yeelaynaa adhiiseen hadda laami waaye haddana waxaan noo qorshaysan mar dhow inaan gelino nalal aan ku wada xirno oo solar ah warnimo dulqaad sameeya ilaahay ka cabsada adduunka waa istaageeraan dadka wax samaystaa quruxsado idinka in wax quruxsotiin samaysta waxay ogtihiin madaxweynaha dawladda Hirshabeelle wuxuu ka soo jeeday maxaa la dhahay degmada Jowhar raali aada mas'uuliyiinta kale hadda halkaan ni wada fadhiyo nin waxa ka yimid ma laha degmada kale ka yimid ama wadan kale ka yimid ma aha waxaan u sameeyno annaga sameeyno idinka idin sameeyno waxaa la rabaa haddii aad iskaashano oo shilin keentid oo shilin dhiibo ayaa wax lagu noqdaaye waxaa ogaanaysiin wixiina soo quura soo bixiya canshuurta ku soorti walaalkay canshuurta anaga aan qaadno wax cad waayaan ku dhahay sanad kastoona waxaan diyaar u nahay weliba sanad ma aha 6 bilood ka bacdi inaan soo bandhigno diyaar u nahay wax oo cad aan banaanka intaan soo saareenay wax cada inta soo saareenay waa aqrinaysiin waa buugan qaybinaynay tan kale oo dhahday maxaa la dhahay
miisaaniyadda wax nii qarsoomi aad dhahdid oo dhehaysid adoo hadda oo nin suxufi ah waa ka daalacan kartaa bog kasta oo magaciisii Soomaali oo leedahay bog kasta ay ku jirtay ma aha kan Hirshabeelle ma aha kan degmada ma aha bog kasta aad gashid miisaaniyadda dawladda hoose degmada Joor aad dhahdid hore laga soo saaraa aad baa idin salaamayaa qof walba oo hoolkan ku midaysan waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaam waxaa la yiri itusay taabsi wax cad waxaa la yiri bilis horteeda looga biyo barxaa wixii ay qabteen waxaan indhuhu qari karin waaye lanaan daboolin oo qof walba horteeda la keenay waa ilaahay baan ku mahadinaynaa qaasatan waxaa iskale mahadaas oo looga mahad celinayaa golaha deegaanka dawladda hoose midda kale waxaa jirto saddex dawladaha jirta waa dawladda federaalka ta isteedka ta dawladda hoose marka dawladda hoose dawladda dhan ee kaabayaasha soo dhista maxaan ku raadayay bilicda magaalada dhista ee ummadeeda u dhimrisa ee wax qabad la yaqaan qabad waa uga mahad celinaynaa bulshadana waxaan leenahay qofkii wax sameeysta ama wax suurta geliya wax u qurxanaadaan horta canshuurtaada in dalka islaameed ama waxaan ku leeyahay ii sheeg banaanka la leeyahay hana la taageero ama dhaqaalahana la siiyo waxa ka qurux badan inaan anagu isku tashano liinteena beerta ka soo gurano cambaheena soo gurano yaanyadeena soo gurano businesskayna hadduu rabo ha yaraada caana ha noqdo ama dhuxul ha noqdo aan wax qoonda ka dhiibano canshuurta bulshada canshuurta inaad bixiso adinkana waa ku mahadsantihiin golaha deegaanka ayagana inay dib noogu celiyaan waa ku mahadsan yihiin waxaan codsanaa marka taa waa mahad celintii waxaan codsanayaa maadaama jid noola dhisay jidku waxa waaye laamigii wuxuu saaran yahay xaafadii laga dhexdhigay dadkanuna sida badan kuma baraarugsana stoobyo kuma xirre ma fahmi karaan si loo maro wadooyinka waxa qurux badan oo codsanaynaa in loo dhigo askari jiifa loo dhigo waxaan ka codsanaynaa dawladda hoose sababta ay tahay haddaan la samaynin cunuga asoo cararayo soo galaa waa yeelaa socdo xoolaa socdaan laamigi culayso badanaa ka imaanaya iyadana waxa kaleeto haddana codsanaa maadaama suuqii interlog la dhigay xaafadahana waxaan codsanaynaa in interlog noo gaaro waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa wada hal su'aal oo ah maadaama hadda laamiyadii oo la dhisay oo laamiyadii xaafadihi xataa la saaray maxay tahay sababtii sheeg gaari qashin qaado hal gaari ayaa oo degmadii inta yiriso dumaasha arkeenka qashin ka qaado maxay tahay sababta xaafadaha loogu sameey waaye gaari qashin ka qaado oo bishina lacag laga qaado bulshada xogay hal su'aal rabaa inaan ku weydiiyo iska kooban su'aashaas oo ah waxaan aragnaa marka qaar idinkoo sameeyaysiin seminaaro oo wasaaradaha qaar ay wadaan inaad tagtiin adiga iyo duqa magaalada iyo team oo xildhibaanada golaha deegaanka kamid ah soo furtiin marka maxaa keenay inaad mar walba seminaaray ay wadaan wasaaradaha inaad tagtiin idinkana maadaama degmadii aad tihiin aad qabowaysiin seminaar wasaaradda ay wadaad ka qayb gashiin laakiin seminaar degmadii ay wada iyadoo ay furaysay dadka u qabayso amba barnaamijka ay wada wali ma arkin anaga marka maxaa keenay inaad idinku wasaaradaha u tagtiin idinka aad qabowaysiin seminaarada adeedo maasantii laba su'aal ah wataa horta aniga mid ugu horeysa waxay tahay horta marka la sameeyay wadooyinka soolarradii oo wadooyinka ku xirnaa waa la wada saaray maadaama hadda shaqadii wadooyinka ee dhamaatay maxaa dib loogu sameeyay wadada soolarradii su'aasha labaad oo aqaa waxay tahay maxaan lahaa dadka IDPs-ka degan inta badan waxbarasho ma helaan IDP-ga waxaa laga yaabaa inuu ku yaalo magaalada banaankeeda oo hooyadii ay ka baqayso cunugan haday u soo dirto waxbarashadii intuu wadadii soo socdo inuu taadi ku dhaco ama dhibaato kale ay soo gaarto IDP kamid ah IDP-da magaalada Jowhar ku yaalo maalin aad tagnay iska daa waxbarasho iyo inay maadi ay bartaan xitaa ilmihii quraanka lama barin waan meeshii yani maanta dad muslimiin aan ahay koow marka ilmaha yani waxa lagu tarbiyay in quraanka bartaan marka maxay dawladda xil iskaga saari weys ugu yaraan in IDP ay degan yihiin inta qol yar ay bacweyne uga dhisaan macallin ay u qabtaan macallinkaasna bil walba ee dawladda meesha wax ku siisay ilmihii maadaama la iska dhaafo diinta loo baro quraanka sida ilmihii salaad u dukan lahaayeen waxyaabaha nolosha muhiimka u ahaa laba su'aal qaba mahadsantiin su'aalaha qaba xogahay su'aasha qaba waxay tahay aniga waxaana
xaafadaas horseeda degannahay caqabad waxaa jirta aan ku qabno biyaha farjano saan wada ognahay maxaa laha maalmihii ugu dambeeyay horta lacagaha aaday qaali noogu dhigeen lacagaha waxaa ka horeeyo in biyihii zaid ay wasaqaysan yihiin biyaha anaga hadartaan soo gaaro horseed ahaan aaday u wasaqaysan yihiin midaada kale dad badan waxaa jiro dad maanta la isdhahaayeen lacagaha lagu soo gelinayo qaali waaye maxaa biyo ayagoo lacagahaas qaaliga ka sii waxaysma haddii biyihii wasaq loogu sii daro اوكي مو بسم الله انت اسدغيسن horta waxe waxaan rabnaa su'aalihi inaan ka jawaabno waxaan la weydiiyay ilaa ku dhawaad 6 su'aalood waxaan rabnaa mid koo aan ka bilaabeyno oo ahaa wadooyin la dhisay maxaa idinka qorsheysan maadaama wada la dhisay waxay noqonaysaa markii hore wadada waxa ahayd in god ay ahayd baawar si fiican u soo jiri laakiin hadda markii la dhisay wadada highway ay noqotay maxay idinka qorsheysan dhankan oo ma lahan samaafara ma lahan laakiin anaga ka dawladoos ahaan waxaan nooga qorsheysay inaan u sameeyno step oo ah askari jiif in loo sameeyo 100 kilomitir askari jiif loo sameeyo si baawurkan xawl uu socono waxa uu daran wadadii weyneed oo Apollo markii hore waxa la dhihay waxa waaye kanaal laga qoday webiga laga qoday hadda markii la dhisay kadib waxay noqotay in taaga laga dhigay biyana lagu celiyay wixii nalo dan waxa loo sameeyay qayb loo sameeyay waxay noqotay in 9 buundo oo biyo mareen in loo sameeyo kadibna qayb askari jiif loo sameeyo 100 kilomitir mar in wax loo sameeyo mid kale su'aashi kale oo soo laabto oo ahayd nadaafada magaalada waxa idinka qorsheysan degmadu waxay leedahay horta company nadaafadeed oo la Shabeelle hadaad ogeyn hadda baro Shabeelle laha waa shaqeeya xaafad walba oo ka shaqeeya I think $3 waa bishii waa company shaqeeya nadaafadeed suuq oo ka qaada meel walba oo ka qaada wana shaqeeya kan degmada haysa baawurka ee degmada haysane waa mid dan guud ee waay wax lacag loogu qaado waa qarash loogu waxeeyo si guud waa asaas midayna kala su'aashayna kala ahayd seminaar ayaa ka qayb gashin idinka seminaar 14 degmada maxay seminaar u qaban weyse mar hore waxa lagu jiraa step ku jirnay markii hore anaga awood capacity aan seminaar ku qabano ma haysani oo budget ma lahayn oo miisaaniyad ma lahayn wax dhan ma lahayn kadib markaa miisaaniyad la ansixiyay budgetka ku jirta in inta tababar loo qabto in seminaar la qabto tababar guud loo qabto hadda waxa tababar loo qabtay waaxda degmada tababar gooni loo qabtay sidoo kale dhanka maaliyadda canshuuraha dinka qaado kale tababar gooni loo qabtay laakiin si guud bulshada tababar guud looma qaadin waxa rajaynaynaa in dhawaanaan iyadana aan qaado doono maxaa qaybta kale su'aasha kale oo ahayd soolarada wadada markii la sameynayo wixii ku agyaalay ama solar ha ahaado ama nal ha ahaado waa laga wada bixiyay si liajli cabirka wadada inuu soo galin solaro cusub kuwii hore waa duugay ahaayeen mudday wadada xisneed solaro cusub dhawaanaan rajaynaynaa waa qaybna way taalaa qaybta kalena dhawaanaan rajaynaynaa in bisha soo socoto wadooyinka dhan wada nalal noqon doonaan taasna ku baraaruga mid kale oo IDBs waxa waaye waxbarasho ma leeyihiin dugsi quraan way leeyihiin IDBs walba waa leeyahay dugsi quraan ku yaalo waa niisoo tusi doonaa midaan waxa noo horeeyo meesha aad waxa ka imaad horseeda filaa marka si bixiyay galabta buunda marka si gudubta meesha tawakkal iyo jilyaale mar feeri waa IDBs kolb su'aashi waa IDBs wayna yeelaan dugsi quraan way wada leeyihiin wax ku anaga nalaga fiiriyo dad islaamaanaani wax ku nalaga fiiriyo dugsi quraan inay leeyihiin mid kale su'aashi kale oo ugu dambeeyay oo ahaa farjano bihi farjano reer horseed xogaa culeysyaa ka yimid culeysaasna dib aan u xeenay maamulka degmada ka fadhiistay iyaga farjano iyo maamulka yeel fadhiistay xitaa odayaashii oo xaafadda horseed matalay iyo dhaqankii isku yimid farjanana go'aan laga soo saaray oo maamulku waxaysan yahay natiijadana waa la arki doonaa dhawaan insha Allah waana maasantiin